السلام عليكم walaal waa horta shirkaasi wuxuu ku saabsanaa arrimaha caruurta adigu sideeda wadankan Holland dhibaatooyin badan baa ka jira oo ku saabsan caruurta la qaadanayo oo mataqaanaa dawladdu ay la wareegayso kadib markay dhibaatooyin xagga familiga ay soo baxeen marka wuxuu ku saabsanaa runtii laba arrimood oo ah kow marka horeysa in dadka ka shaqeeya arrimaha caruurta oo hay'ado badan oo kala duwan ah oo lagu casuumay loo sheego dhibaatada jirta oo dhaqanka kala duwanaanshaha iyo dadku magaranaysa meesha ay ka yimaadeen iyo waxa ay iyagu qaabka ay u arkaan korinta ilmaha inay ka duwan tahay halkan taas inay tixgeliyaan waxay ahayd arrin muhiim ah arrinta kale oo la rabay in loo sheegana waxay ahayd in ururada ay ka mid tahay SONNPCAN oo ay sida ay diyaar ugu tahay inay la shaqeyso wixii hadda ka dambeeya hay'adaha iyagaasi meesha looga saaro dhibaatada badan isfaham waaga ku dhacaysa waa garta marka ururkiina SONNPCAN u dooda xuquuqda caruurta Soomaaliyeed dhibaatooyinkan faraha badan wadankan yaala ku haysta Soomaalida maxaad ka qaban kartaan maxamedow waxa runtii markaan kaaga sheekeeyo SONNPCAN markii hore 88 ayaa Soomaaliya lagu asaasay ujeedadu bariga waxay ahayd dawladdii ama Soomaalida markaa jirtay in la ahmiyad inay siiso caruurta sida tusaale ahaan in caruurta loo sameeyo nidaam gaar ah ama sharciyo ilaalisa xuquuqdooda ayay ahayd ujeedadu macnaheedu markaasna wax caruurta oo ahmiyad gaar ah sida xitaa xabsiyada lagu xiraa ma ahayn xabsiyo gaar ah caruurta oo dadka waaweyn baa lagu xiri jiray marka xuquuqda gaarka ahmiyadda bariga ay ku asaasantay ka bacdi 2004 ayaa marka dadkii asaasay halkan la iska helay marka arrin kale ka duwan baan marka halka la kulanay oo ah meeshii dadku halka nidaam la'aan iyo sharci la'aan caruurta xuquuqda daryeesha ay ka jirtay ayaa halka waxa kulanay shuruucyo badan